shuruudaha lagu doorto dadka kiliga saddex weeye mid kamida waxa weeye ruux inaan dadkooda u damqan Soomaalnimo aan lahayn abaadulla gamara oo aasaas u ah isbedelka Oromada markii waxa loo keenay inuu burburiyo Oromada ahayd dabaqoodii ha ahaade wuxuu ka shaqeeyay duruuftii keentay inaanay jirin nasiib darro kuweenu inta way garan waayeen waxaan hadda ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha xisbiga danta Soomaaliyeed mudane Axmed Xasan Baashe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dabka ka dhacay jigjiga ma aha wax ugu ah waa markii saddexaad ee dadka dallayda ah dawladdu dhan walba ay nolosha uga diiday intii soo hadhay laga kiciyo laba suuq oo hore jiray kan waa kii saddexaad weey inaynu fahanno sababta looga dumiye ma aha kaliya in dhulka laga rabo xisbiga meesha ka jira ee barwaaqo ama balsiganaaf xabashiga lagu dhaho waxay ku barwaaqoobaan amba ku baraarubaan balaayada iyo dhibka shacabkooda waa xukuumadda falsafad ahaan u qaadatay inay la dagaalanto faqiirka not faqriga waxa taa idinku daliil ah waxaad la socotaan 2 sano ka hor markii abaartu socotay ugu darayd yaa ninaan saaxiibanahay oo u shaqeeya World Bank ay ugu yimid magaalada Nairobi wuxuu igu yiri waxaan ka yaxyaxay dad qamadi baryahaya inay qasri noocaas ku jiraan qasriga jigjiga maanta ku jirta waxa lagu dhisay 2 billion bir marka la dhisayo islaamo ka soo gooshay 740 kilomitir oo biyo la'aan ah baa dul joogay marka dadka meesha joogay dadka u naxaya ma niman saaxiibanahay wuxuu yiri shuruudaha lagu doorto dadka kiliga saddex weeye mid kamida waxa weeye ruux inaan dadkooda u damqan Soomaalnimo aan lahayn Ethiopia isbedel baa ka socda maalin walba halgan dheer oo muddo 400 sano baan ku soo jirnay jiilba jiil isu dhiibay ilaahay raali ah ka noqday dad badan baa inooga siiday oo ku naaloonayna dhiigii ay bixiyeen jiilka maanta jooga yaa looga baahan yahay inaanu leyrkaas u damin say ku sii wadaanba waxaan idinkula dardaarmayaa maanta gobolkeena waxa haystaa boqolkiiba 90 dhibkeena waxay ka timid wiilal ku hadla afkeena inagana inagu abtirsada waxba inaan adsaabo inta badan ee dasaarin Oromo markii ay ku noqotay gurigeedii ruuxu soo ku yimaada muhiim ah abaadulla gamara oo aasaas u ah isbedelka Oromada markii waxa loo keenay inuu burburiyo Oromada ahayd dabaqoodii ha ahaade wuxuu ka shaqeeyay duruuftii keentay inaanay jirin nasiib darro kuweenu inta way garan waayeen innaga la nooga baahan yahay cudud iyo awoodba inaan sugayno aan dhahna yeeli mayna sidan waynu iska cayrin karnaa wax saaweyn ma waqtiga ugu yar waxaan ku soo gunaanadayaa ilaahay wadada saxda hayna tuso ilaahay dulmiga naga dulqaado ilaahay qulubteena soo xaaro ilaahay kuwa u istaagay danta Soomaalida hadii ay gafaan u dulqaata hadii ay u baahan yihiin toosiya dulqaad badan baan isugu baahanahay halgan baan ku jirnaa isku meel baynu wax u wada wadnaa walaalaheena ku waxyeeloobay amba wax dhibaatada uga soo gaadhay dabka waxaan rajaynayaa inaad qulubtiina iyo jeebadihiinaba aad u furtaan sidii kuwii horeba aad maxay tooleeday u caawiseen mar labaad waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa mahadsan yahay